وسهلا ابتسام سودو وان دواهي مدني صوفريسو إيجور وركاغا ابتسام الحمد لله هاي مقالة waxaan ka imid magaalada Casablanca ee Daarbayda ما شاء الله كاسابلانكا وبركة من المغرب waa ku dhawaad mar labaad uu soo dhaweynaya waan dhawahay mudane haddaba ibtisaam sheekadeedu waa sheeko family weeye qoys wanaagsan oo qurux badan waliba waxayna halkan u timid inay soo ceshato walaalkeed Faisal muddo waxa ugu dambeysay 12 ilaa 13 sano wadanka Maghrib uu dhoofay kadib Turkiga ayuu tagay kadib Turkiga uu ka yimid Suuriya ayuu yimid muddo ayuu ku noolaa Suuriya waanu ka shaqayn jiray waanu ku guursaday waliba gabadh Suuriyaana waana u dhashay dabadeedna mar kale ayuu dhoofay oo wuxuu yimid wadankan Masar hadda isagii xaaskiisii awlaadiisuba ma ogi laakiin hadda uu joogaane amba tira intay yihiinba si kasta haataba isaga iyo qoyskiisuba waxay ku nool yihiin wadanka Masar wuxuu Maghrib uga tagay si uu shaqo u raadiyay sida dhalinyarada kale ee wadanka Carabeed oo dhan ka dhacda wuu jeclaa cayladiisa amba ehelkiisa waanu aad buu ugu dhaganaa oo xiriirin jiray dhibaatada jirta waxay tahay daba markii uu aftigii dhintay reerkoodu uma sheegin inuu aftigii dhintay mar kale baa aftigiisa labaad dhintay haddana reerkii sidoo kale warkaa may gaarsiin isaga wuu ogaaday wuxuu ka xumaaday isagoo wadankii ka fog in ehelkiisii qaar ka mid ay dhintaan oo haddana loo sheegi waayo maxay ugu soo warrami waayeen xiriirkii bartaa ku jaray marka maanta muddo laga joogo 12 sanadood waxaa noo timid walaashii Ibtisaam si ay ugu dhahdo walaal annagu kumaana soo warramin adaanan kuu baqanayni sababtoo ah waxaan ogeyn sida aad u jeclayd aftiyaasha anna maanta walaal waxaan u yimid anigoo matalaya dhammaan qoyskeeni inaad ku soo noqoto ehelkeeni sidan awal ahaan jirnay isku soo noqono walaalkayo sida ma aha Ibtisaam waa sidaas wax kale adiga oranaysa ma jiraan waxaan ku dari lahaa dagaalada ka dhacay Suuriya sidaas baanu xiriirkay ku kala go'ay waqtigan islahayn isaga u sheegana ee wadanka Suuriya anagana duruuf baa noo saamaxay weyday isagana inuu nool yahay iyo inuu dhintay toosuu kala go'neen oo mararka qaarkood ayaad xiriiriseen intii aanu dagaaladu dhicin waanu iska warhayn jirnay laakiin markii ay dagaaladu dhaceen isagu inuu nool yahay iyo meel ku sugnaa midna ma aanan garanayn xataa meel laga waco ma aanan garanayn sidaas aan xiriirkay ku xumaaday gabadhan jaarnahay oo dalxiis u timid Masar ayaa si kadisa nambarkiisa aan uga soo ogaanay kadibna anagu sidaas baan ku ogaanay walaalkeen inuu nool yahay dukuna saasad ugu warwarsaneedeen waqtiga xaalada Suuriya ee ka socotay inuu nool yahay dukumeedaan ogeyn isagu halku ku noolaa markuu Suuriya joogay Dimashq buu ku noolaa Dimashq sax hay hadda idinku waxaad ogaateen inuu ku nool yahay wadankan Masar ka bacdina anaga nala soo xiriiray oo barnaamijkan sababtoo ah in badan baad daawatay barnaamijkan walaalkaana aad u sheegto runta xiriirkii dib soo celisaan oo Maghribna isku raadaan kalow hubaal anigu waxaan doonayaa in walaalkay dhulkayga igu la noqdo qoyskaygina ay sida ku wada midoobaan aniga rajadeeduna taas weeyaan imsad walaaladeedina walaalka iga yar baa jooga Faysalna waa curadkayga Faysal isaga curadka isaga aabahana aabaha ma nool yahay aabahay uu nool yahay hooyada macallin hooyada iyo aabaha way wada nool yihiin labaduba iyaga naftirkooda inay arkaan bay doonayaan insha Allah kadis ay noqon doontaa marka insha Allah hadda isaga waxa laga yaabaa kaloo ma oga cidda u yeedhay iyo cidda doonaysaba kaloo kadis bay ku noqonaysaa insha Allah oo aad u qurux badan waliba anigoo u diray fariintii Faisal miyuu aqbalayna maxaa tirina miyuu ogolaaday insha Allah halkan eeg bal inuu ogolaaday in kalaba أهلا وسهلا فيصل شدو ودوهي مدن جورج ودوهي يقولن حالة هذا وفي عناي والله ما شاء الله يفرسو كورن إيه الكاجيو والله الحمد لله يبنوا وعيين ويقولن إنك كير عن كواركي مركي دويت فرينتها عن حلقة كداوني ما إنك كاجي طبعا وين كاجي وين مسجل ولا حسنا شير مسكر الله ده يعرفنا waxaan leeyahay maxamed yarkii albaaka furayay markii
iyo sidoo kale gabadh la yidhaahdo shaam. shaam magac suuriyaad ugu dartay aduu shaam baad ku nooleed dabcan. oo xaaskaaguna waa reer shaam oo halkaasaad ku nooleed xaaskaagu waa suuriyad waxaad u yara egtay sida qof yacni yaabsan waa yaabanahay kolley waxaan leeyahay sidee xijira. haddaba abu maxamedow mar labaad uu ku soo dhoweynayaa kuna soo dhowo waan ku leeyahay bartan. waad mahadsantahay mudane Giorgio. maxaad ka shaqaysaa horta? anigu waxaan ahay sheef cunto kariyaa. si fiican baad u karin taqaanaa markaa soo maaha? iyaad maasha allah hadda sheef fiican baa tahay hadda. kada wada sheekaysanana waxaan kaa dareemay inay weli su'aal kugu taagantaad is leedahay talow waayo amba sababta lagu yeedhay maxay tahay? de waa yaabanahay weli. waanad yaaban tahay sax. mudane anigu adigu maan ku garanayay markay fariintaadii soo gaadhayna isla markiiba waan soo cararay. in badan baana barnaamijyadaada ka daawaday tiifiyada. su'aal baan ku weydiinayaa haddaba ma u xiistay maqrib? maqrib miyaad u xiistay? aad in badan baad u xiistay. masarna way weyn tahay. faysalow kadis ayaan ku wadaa aad u weyn laakiin garan maayo saad u qaabili lahayd. laakiin anaa kugu talagalay. aniga waxaa laga codsaday inaan kuu yeedho waanan kuu yeedhay adiga weliba barnaamijkan oo la yidhahda magaciisa markii ugu horreysaan maqlo. weli maad arag? ma arag tiifiyada badan ama daawado markaa ma arag. waxaan doonayaa haddaba inaad shaashadda aad eegto si fiicanna u eeg oo ogow ciddii kuu yeedhay adiga. tani waa walaashay ibtisaam. miyaad garanaysaana? wallaahi waa walaashay ibtisaam. walaashaada? waa walaashay. bal fariiso horta fariiso inaga wada hadlayne istajiyo. ma hubtaa inay walaasha ibtisaam tahay mise waa qof kale? ibtisaam walaashaadii maqribka walaasha waan garanayaa waa iyadii laftigeedii. walaasha waad garanaysaa fariiso bal horta gartay tani waa walaasha ibtisaam walaalkaa u yar qosol. oo iyadu maxagan bay joogtaa? maya banaankay joogtaa. xaggee? waxaad doonaysa inaad aragto? dabcan. wadaarkii fariiso horta warqad bay ku soo dirtay warqaddan ku akhrinayaa. marka hore aan warqadda ku akhriyo markaasaan igu yeedhi doonnaa si aad u aragtee. waxaa ku qoran warqadda sida tan: walaalkayga qaaliga ahaayon jeclaayo faysalow aad ayaan kuugu xiisay walaal. muddo 12 sana ah ayaad walaal naga maqneed. xiisahaagii kalgacaylkaan kuu qabna maalinba maalinta ka dambaysa waa nagu sii kordhiyey walaal. waad guursatay oo aabbaad noqotay walaal. annaguna maanan arag xaaskaaga iyo ubadkaagaba. maanan naqaano inaad annaga nooga sheekaysay iyada iyo in kale. hooyadaa waxay u il daran tahay aragtidaada. aniga iyo aabbahay iyo walaalaba waxaan u xiisnay joogitaankaagii aad nala joogtay. adigu mar kasta waxaad tahay mid naga mida annaga qoys ahaan. si kastay duruufuhu inoo kala fogeeyaan walaal. faysalow cabsi aan adiga ka qabno inaad ku murugooto ayaan kugu sheegi weynay dhimashada aftiyaasha ah. cabsi aan ka qabno walaalkayow in dhul shisheeye amba waddan kale aad ku murugooto iyadoo oo aanu ku ag joogin walaalada amba ehelkaagu. taasaana kaliftay inaan kaa qarino walaal. haddaba walaal waxaan rajaynaynaa inay xaaladdeenu isbeddesho. waxaanan doonaynaa aan ku rajo weynahay inaad annaga nala joogto walaal. wax kastoo inaga lumayba maanta ayay tahay wakhtigeedii. annaguna waan ku cafinay wax kastoo dhacayba. waxaanan doonaynaa mar labaad inaan qoyskeenni dib isugu soo ururino. aanan kaa codsanaynaa inaadan saamaxdo haddii aan annagu sabab u nahay marnaba. fogaashiyaad naga fog tahay walaalna saamax. haddii ay cabsi aan kuu qabna adiga aan kaaga qarinay dhimashada waalidiinta. annaguna waxaan kuu diidayna walaal adigoo keliya inaad culays kaaga qaado. walma saamax karin walaalkayow. adigu miyaad u cadhaysan tahay faysalow? iyaga miyaad u cadhaysan tahay faysalow? yacni way iska kii fogeeyeen. wax waloo dhacayna way iga qariyeen. may ku fogeeyeen? sidee baad u dareentay in adig ku fogeeyeen? ibtisaam annagu waan wada hadalnay. waxaana ii sheegtay intaanay dhibaatadu ka dhicin waddanka suuriya muddo laga joogo 4 sano imika waan wada hadli jirno xidhiidhkaygu waa fiicnaa. adiga iyo iyagaba intaa waxay ka dambeeyey xidhiidhkii baa go'ay. 4 sano may ogeyn meel aad ku nooshahay. 4taa sano ehelkaaga aabbaha iyo hooyada iyo dhammaanba waxay ku mashquulsanaayeen inaad nooshahay inaad dhimatay. adigu 4 sano maxaad ula hadli weydiiyey? wallaahi markii aan dagaalka suuriya ka soo cararnay madaarka saa u nimi
wax alle waxaan alaab sidanay telefoonaan noqoto iyo oo waxyaabihii adigu kaloo dhan nambarka reerkiina miyaad May. xafidsaneen telefoonku igu seef garaysnaabay maxaan ka xafidaa maad xafidsaneen maan xafidsanayn teleefonku igu jiray teleefonkiina waa layga qaatay ma isku dayday marnaba inaad la hadasho ood xalkooga ogaato waan isku dayey sidee sidii aan u raadinayey waxaan maalmaha ka mid ah la kulmay gabadh jaarkayagaa kadib waxaan siiyey nambarkaygii waxaanan ku yidhi reerkayga telefoonnadaydu wayga lumeene u gee nambarkaygan iyaduna nambarka reerkayga may hayn u gee iyagu hayla soo hadlaan sidaan iyaga laftigooda xaaladdooda u ogaado si aad ula xidhiidho maxaa yeelay iyaga laftigooda maan garanay xaaladda iyagu ku sugnaayeen waxaan ku yidhi ii soo sheegay inay balaayo dhacday oo saasay iyo kaaga inay baxeen dhib kaleba jirto kamana warrami karo inay gaadhsiisay iyo in kale ilaahay baana og hadda adigu markaad aragtay ibtisaam maxaad dareentayna qalbi ololaya ololaya ibtisaamey la hadal aduu soo eegay la hadal walaalkayow annagu maanaan awoodayn inaan wakhtigaa kuu sheegno adigu ibtisaamey kor u hadal inaad bal tiyaasheen dhintaan annagu adigaanu kuu baqanaynay iyo naftaada annagu walaala waxaannu kaaga cabsanaynay qurbaha aad keligaa ku tahay inaad ku dhibaatootid waanan ogayn abtiyo saciidna waan garanayn xidhiidhkiinu wanaagsana isagana allah u naxariistee annaguna walaalaalka waxaannu imannay inaad dhammaan qoyskeenna iska saamaxdid oo aad gurigii mar labaad ku soo laabatid innagu markii hore qoys dhammaystiran baynu ahay oo meel ku wada faraxsan laakiin adiguna markaad halkaa tagtay inteedii soo hadhayna farxad waannu heli kari weynay annaguna walaalo mar walba adigaannu kaa fikiraynay iyo xaaladdaa ku sugan tahay annagu walaalo dhibtaada si fiican baannu u dareensanayn manaanaan jeclayn maxaad u tiri adigu way qawraaceen maxay kugu qawraaceen markaa sabab adugu maqrib waad ka tagtay oo waddanka kalaad u dhooftay adoo doon inaad hanti shaqaysato dadku ay tagaan baan anigu u tegey sida dhallinyartoo kale waa garanayaa wax wanaagsanna waan rabay mustaqbalka wanaagsankan ku jirayna waan rabay alxamdulilah wixii dhacayna way dhaceen sida dadka kalean doonaya inaan noqdo kolna yurub tago kolna ka soo noqdo kolna lacag helo kolna gaadhi fuulo hanti raadis dabcan hanti raadis laakiin ehelkaagu dembi kuma laha anigu arrinka iyaga arrintaa marnaba dembiga kuma saarayo laakiin waad iqasheen adu maxaad ku keentay waa iska kay fogeeyeen 5 sano ilaa 4 sano ku dhowaad ilamay baad ka hadal dhigteen isaga siduu isagu sheegayo waad iska fogayseen laakiin iyagu way ku raadiyeen oo xidhiirkii teleefoonaadka ayaa bartan ku kala go'ay muddo laga jooga 4 sano saasay tidhi saasoo maha ibtisaamay waa sidaa mudane iminkana dooni maayo wakhtiga inaan iska dayacno markii horena wadiiradda degsaneed waxaad doonaysay inaad ibtisaam aad u tagto haddaba ibtisaam stuudiyaha inila joogtaa adii iyadana gidaarkan baa idii dhexeeya haddii aad ku tiraahdo almusaamax kariim ilaahay naga cafiyo wixii dhacay waxaan furaynaa gidaarkan waanaad arkaysa sugarta marka hore alla furo oo degdegsan tahayba bal fadhiiso marka hore waa inaad tiraahdaa almusaamax kariim musaamax kariim kaale haddaba kaale soo kuma waran kadis baa kaaga dhigayaa kadiskii muu ku qaboojiyo ku fadhiisiyey markaa qabiil 30 sano halkuu ina geeyey qabiil horta maxaan ka faa'iidnay qabiil imaka haddayn kaba hadalno burburkii Soomaalidu annagu meel kale tagayba Soomaalida dhexdooda ku soo gaaray waliba qabiil dartii ku soo gaaray qabiil dartii baa inuu wada ognahay sida maanta imisa hebel reer ku dhintay oo maanta imisa hebel reer loo dilay wallahi boqolaal maxaa laga faa'iiday waxba lagama faa'iidin wiilun baa ku dhintay maxaa kuu soo kordhay qalbiyun baa ku sii bukooday calaadun baa sii badatay marka waxaan leenahay dadka social media ku jira ee qabyaalada faafinayo oo ilaahay ka baqa dadka ilaahay ka baqa oo ka daaya qabiilka dadka aad xasuusinaysan ama dadka wax kaloo faa'iido oo horumar oo iyaga wanaagsan u keena laakiin qabiil inta adoo nin weyn inta halka soo fadhiisatay qabiil wax ka sheegaysa siyaasi bad qabiil han ku caayisa
madax dhaqameed dad qabiil ahaan ku caayaysa oo ma garanaysaa culumad qabiil ahaan ku caayaysa oo ma garanaysaa qof social media ku jira qabiilana caayaysa umada dhexdeeda laga garanayo ilaahay ka cabsada ilaahay laga cabsado maanta adduunka joogna barina waa aakhiro warqulubtiina isku ma garanaysaa isku laabxaadha dhammaantiin bas dhammaantiin markaas dunida ka joogtaanba waa nin najax booni oo idin leh fiidiyoogan ku xiga waxaad ka daawan doontaan amba aanu aad idinku soo dhaweynaynaa anagana farxadeeda tahay dabcan idinkana farxadiina noqon doontaa waxaan idiin sameynaa barnaamij ah fiidiyooga ku xiga oo call WhatsApp ah inaan nambaradeeda idin qorino horena idinku soo qornay kadibna aad maxay haday nala soo xiriirisaan maalinta aan idin cayimi doono anagu insha Allah idin sheegi doono maalinta aad noo soo diyaar garoobi doontaan anaguna diyaar idin soo noqon doono qof kasto idinkeeda kamid oo anagana soo call gareyn doono live fanaadi la hadli doono su'aal kasta oo qabtana aan kaaga jawaabi doono khadrow hadal waxaan idin sheegay khamiista soo socota insha Allah haddii la yiraahdo marka waxaan diga tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh WhatsApp-deena hoosta idinku soo qorinaa maalintaasi aad u diyaar garoowa maalintaas su'aalaha aniga hagu badanina khadar ku badiyo su'aalaha saa xoog ugu jawaab su'aal baa waa cararaysa maalintaan oo la ballamaysaa hor والله قشون قاعدة ما يسوي دي صرف لها ناس الموني اكستشينج صرف له أبال قدوم معميشة كو قافن تعل قيمة عن قرقور لهين صرف له كو قوين يو بنقي قود راعي يو وحو جرك لقدبون مركو نمبر كاغو قلو قاربا كو قابية كو عن بحيق عن فضي جيق الناس الباكري بلشوي قارقو حنو صرف له قبني ماله قناعسي وحو كلا بدله تدكونا كو قبلين أمان جيق الناس الباكري بلشوي قارقو حنو نازل ماني اكستشينج